السلام عليكم. maanta waa xalqadii labaad ee taxanahanii Tataarka. Genghis Khan markii uu China qabsaday waxa uu xuduud la yeeshay dawladdii Muslimka ahayd ee la odhan jiray ad-dawlatul Khwarizmi. intii hore waxa uu Genghis raali ku noqday in labada dawladood jaar wanaag ku wada noolaadaan, balse nabadaasi ma sii waarin. isagoo oo damac kaga jira Genghis Khan dhulka muslimiinta ee hodanka ah, balse waayay hab uu u maro banaysiga dhulkooda ayaa fal aan la filaynin ka soo fulay muslimiintii. magaalada Atrar oo ah magaalo ka tirsan dhulka ay ka taliso dawladda Khwarizm ee xaakimkeedii waxa uu laayay ganacsato reer Moqol ah oo u soo ganacsi doontay. arrinkaasi waxa uu noqday fajiciso iyo la yaab, balse taariikhyahanadu waxa ay ka bixiyaan falka sharaxaadiisa dhowr sharaxaadood oo kala duwan. waxa ay qaarkood ku sheegeen in sababta loo dilay ahayd inay ahaayeen jawaasiis iyo basaasiin uu soo dirsaday Genghis Khan oo la ogaaday, halka qaar kale ku sheegaan in xaakimkii magaalada damac ka galay xoolahoodii sidaana uu ku laayay. qolo saddexaad ayaa tibaaxda in Genghis Khan magaalada u soo diray rag ciidan ah oo shaqadoodu ahayd inay laayaan ganacsatada si uu ugu soo duulo dhulka muslimiinta. kastaba ha ahaatee, arrinkaasi waxa uu aad u cadhogeliyey Genghis Khan, waxaana uu ka dalbaday Maxamed Khwarizm Shaahi labaad inuu u soo dhiibo oo u gacan geliyo gacan ku dhiiglayaashii falka geystay. balse Maxamed arrinkaa waxa uu kaga jawaab celiyey inaanu u dhiibaynin ruux muslim ah qof gaal ah. waxa uu ugu daray inuu isagu baadhayo ciddii falkan geysatay, ciddii ay ku caddaatana uu isagu abaalkeeda marinayo, isagoo waafajinaya ciqaabtooda diinta islaamka, taas oo aanu ku qancin Genghis Khan. waxa uu go'aansaday Genghis Khan inuu weeraro dhulka muslimiinta, waxaana uu soo qaaday duulaan uu hogaaminayay wiilkiisii George Khan Sebtembar 1219. waxaa markaa laga joogay asaaskii dawladdii Moqolka 13 sannadood oo qura. waxa ay labadii ciidan isku fara saareen agagaarka webiga Saradariya ee ku yaala dawladda Kazakhstan. dagaalkuna waxa uu socday 4 cisho oo xidhiidh ah. muslimiinta waxaa laga dilay 20,000 oo askari, halka Tataarka inta labanlaabkeed laga dilay. kadib Maxamed Khwarizm waxa uu arkay inaanu ciidanka Tataarka u babacdhigi karin. markaas ayuu kala baxay ciidankiisii goobtii dagaalka, waxaana uu ku laabtay caasimadiisii oo uu isku ilaaliyey, halka uu bariga boqortooyadiisii uga tegay Moqolka. waxa uu soo jiray Genghis Khan dhammaan gobolka Kazakhstan oo ah 3 milyan oo kiiloomitir oo iskuweer ah, ilaa uu ka soo gaadhay magaalada Bukhara oo ah magaalada uu u dhashay Sheikh Bukhari. markaas ayay dadkii isqabteen magaalada: miyaynu dagaalanaa mise waynu isdhiibnaa? laba qolo ayay u kala jabeen. qolo ku adkaysatay in ay isdhiibaan iyo qolo ku adkaysatay inay diriraan oo cadowga iska celiyaan. qoladii ku adkaysatay in ay dagaalamaan waxa ay galeen qalcad ku taallay magaalada, halka kuwii kale albaabada ay u fureen ciidankii Tataarka. balse labadoodii qoloba dhegta ayuu dhiigga u daray. dumarka waxaa lagu horkufsanayay waalidkood, xaaska waxaa lagu horkufsanayay saygeeda hortiisa, magaaladiina dhulka ayaa lala simay. waxa ay dooxayeen dumarka uurka leh.